السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. toonta xilliyo horena waxbaynu ka taataabanay waxay ka mid tahay qudaarta aadka u faa'iidada badan. faa'iidooyinkeeda laguma soo koobi karo muuqaal kaliya sharaxaado badan bay u baahan tahay laakiin haddaynu laba ka soo qaadano labada shay ee ugu muhiimsan toontu waxay samaysaa wax la yiraahdo post immune system waxay xoojisaa difaaca jirka ibnaadamka ay xoojisaa dadka inta badan toonta cunaa waxay awood u leeyihiin inay jirkooda uu iska difaaco noolaha ilma qabatinka ah ee ina dhaawacaya xanuunada inagu sababa ee caabuqa iyo infection-ka inagu keena ee viruska bacteria iyo fungus iyo kuwaas ay ka mid yihiin waxa kale oo jirta iyaduna experimental data tilmaamaya toonta in loo isticmaali karo ama toontu inay tahayba detoxification oo jirka sunta ay ka disho jirka sunta inay ka saarto oo ay jirka sunta ay dabada uga soo saarto waxa kale oo iyaduna jirta toontu xididada ay xaydhu xidhay ama duxdu ay xidhay ayay balqisaa oo ay ku samaysaa inay ka dhigto kuwa looseliya ama kuwa dabacsan oo dhiigu caadi u maray haddaba toonta sidaas ayaa dad ka midi marka ay cunaan waxa ay ku geli karaan halis iyo khatar weyn toonta waa laga yaabaa 3 common symptom baa jira ama 3 common reason baa jira side effect-geeda laga soo qaato oo ah urteedu qarmuun laab jeexan iyo calool olol inay leedahay laakiin saddexda side effect-geeda ah kuwaynu ka hadlaynaa maaha waxa jirta khatar kale oo iyaduna ku dhex jirta toonta oo dadka qaar u keeni karta inay xataa heer ay u dhintaan ay gaadhaan waxa jirta dadka qaar toonta marka ay cunaan ee waliba sideeda ay u cunaan jirka markay saa u soo gasho difaaca jirku waxa uu noqdaa mid aleera ama mid soo jeeda oo aweera oo ka warhaya waxa jirka soo galay kadib waxa uu tixgeliyaa maadaama difaaca jirka ay markiiba saameyn ku sameynayso oo toontu meesha ay markiiba jirka ka saameeyso waxa kamid ah difaaca jirka in uu antibodies wax la yiraahdo uu sameeysto marka jirku si degdeg ah uu hawlgeliyo taasi markaa inay ku keento inuu ka hortago isagoo la dagaalamayo toontii buu ka hortagaya markaas waxa la sii daynayaa chemicals ayuu jirku sii daynayaa toontii baa dagaal la galayaa toontii markaas waxa dagaalka ka dhaxdhacaya toonta iyo difaaca jirka qofka waxa uu ku keenayaa wax la yiraahdo allergy reaction ayaa jirkiisa ka dhalanaya markaas saddex meeloodba way ka saameynaysaa qaybta la yiraahdo respiratory tract ama respiratory system-ka way ka saameynaysaa qaybta hawo-mareenka qofku way ka saameynaya allergy-gaas oo waxa dhici karta naqaskuba inuu isku taago oo markaas qofkii uu neef qabatoobo way dhici kartaa waxay kale ka saameysaa skin allergy reaction baa iyaduna dhaca oo maqaarka inuu markaa qofkii uu nabar ku yeesho ama maqaarka inuu buurto oo ama inuu bararo ama waxyaabo noocaas inay ku yimaadaan waxa kale ka saameysaa qayb leeyahay circulatory system ama qaybka circulation-ka dhiigga qulqulka dhiigga iyo kala wareegga dhiigga inay saameyso markaas toonta haddaad allergy ku leedahay ha isticmaalin oo waliba iyadoo qeerin ha isticmaalin ama iyadoo biyo ku radiyay ha isticmaalin iska jooji toonta. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.